aan maaragtay ugu faraxsanahay waxa weeye arrinta maanta halka loo joogo waa nabadda galmudug nabadda habargidir kaliya mali midnimada habargidir waxay horseed u tahay midnimada galmudug iyo dhismaha galmudug iyo sharafta galmudug iyo horukaca galmudug ayay maaragtay u tahay hordhac marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkan dadkii ka soo shaqeeyay oo isku soo dubariday oo ilaa meel dheer ka keenay oo aan ogahay 3-4 bilood ka hor in guddiyaal survey ama sahana oo socda ay noogu yimaadeen gaalkacyo noogu yimaadeen dhuusamareeb markaa ka bacdina go'aanka lagu gaaray in la keeno Hobyo waa magaalo qadiimi ah waa magaalooyinkii gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo kulligood magaaladii dhashay weey in taariikhdeedii la soo celiyo oo shirarka lagu qabto waxaan ogahay mid kale oo 1925 ahaa oo Hobyo inta lagu qabtay haddana ceelhuur lagu gunaanaday waa 94 sano ka hor weey buugii laga qoray kitaabadii laga qoray heshiiskii waa yaala aad iyo aad baan ugu xumay maanta ma wado laakiin waan soo bandhigi doonaa waa keeni doonaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer Hobyo hadday tahay gudoomiye maaragtay degmada haddii ay tahay shacabka reer Hobyo iyo nawaaxiga u dhow oo dhan oo u soo dhaweeyay maaragtay shirka kan si qurux badan oo aan weligeedii Alle la arag waxaan ognahay dadkii guryaha deganaa magaalada Hobyo in ugu yaraan 60 guri laga guuray oo loo baneeyay martida waxaan ognahay in maalintii intaas oo xoolaa laga keeno miyiga waxaan ognahay dadka reer Hobyo ninba igu yimid muqdisho maalin dhaweyd wuxuu yiri quraacdii baa intay dhaaftay baan waxaan tagay buu yiri makhaayad beer baan ka cunay buu marka beerkii cunay baan gabar joogtay waxaan ku iri buu yiri lacagtu waa imisa waxay weydiisay buu yiri soo ka mid ma ahid ergada shirka waa gabar magaalada dhexdeeda makhaayad ku haysata ka mid baan ahay buu yiri waxba lagaama rabay oo iska tag bayt waxyaalaha muujisada ah oo la yaab kale oo magaaladan lagala kulmay ka mid tahay kuwa kaloo badanina waa soo socdaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii soo abaabushay intii hirgelisay guddiga qabanqaabada kuwii hore oo fakeray saraakiishii qoraalada soo samaysay iyo inta hadda wadaba iyo ergooyinka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kulligood sida u dhan maanta aniga waa idin soo booqday waxna idin ma wadin shirka gabagabadiisana waa imaanaya haddii Alla idmo waxaan kaliya oo rabay inaan sheego oo ku dhawaaqa mar kale galmudug 2 bilood ka hor waa tii aan dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dawladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay dhuusamareeb iyo cadaado iyo caradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabato hadafkaygu wuxuu ahaa inay xaraanay howsha isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhaweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama anaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dawladda federaalka ay hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyay
warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweynihii waa joogaan cidla ma aha waxaan rajaynaynaa haddii wax la dhisana inaan ka noqono udubdhexaad inaan ka noqono ayaan rabnaa inaan wax ka dhisno inaan wax quman dhisnaan rabnaa waxa qumanoo aan dhisaynana ilaahay maaragtay nala garab galo waa nala garab geli doonaa waxaa kale oo aad iyo aad muhiim ah Soomaaliya 30 sano la soo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii 40 milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib u heshiisiin wax la yiraahdo dib u heshiisiintaasi waa seminar iyo workshop iyo NGO wada dib u heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta ay togalisoor iyo meesha la yiraahdo dhabada iskuma socdaan hadda raaliga ahaada jaamacaange iyo xasan yarana waxay wada joogaan baa laga yaabaa dhuusamareeb ayadoo midna hoolka dhinaca ka fadhiyo midna dhinaca ka fadhiyo waa la heshiiyey haddii la yiraahdo labadii magaalana aysan isku socon soo dhibaato ma xasan yar wuxuu tabanayaa gurigii galisoor inuu ku laabto jaamacana wuxuu rabaa in carrada la wada daaqo in labadu waa rabaan heshiisa in la isu keeno oo wax loo kala qaado oo kii gurigiisa loo cesho oo kii hantidiisa loo celiyo oo kii dhiig ka maqan yahay loo mago miyaysan ahayn dhab oo heshiisiinta horta waa taa ee ma aha workshop iyo NGO maaha laga bilaabo maanta galmudug waxaan rabnaa in ay samayso dhab heshiisiin waxaan ugu baaqayaa beelaha galmudug oo hadda halkaan ka maqan inay nagala soo qayb galaan dhab heshiisiinta ka furan Hobyo in ay intii xurgufi u dhaxayso nagala qayb galaan ama kala qayb galaan beelaha halka fadhiya in ay isku soo dhaweeyaan oo ay isfahamsiiyaan oo wax dhaxalgal ah oo nabad waarta dhala oo dawlad fiican dhala oo wax wanaagsan inay halka soo baxaan ma rabnaa ilaahay hadduu idmo waxaan ku soo dhaweynayaa beelaha ay ugu horeyso beesha sade oo aad iyo aad xurgufo badan ka jiraan mudug iyo galguduud labadaba beelaha fiqi maxamed oo xeraale iyo kala jooga iyo huurshe oo in la isku dhaweeyo la isku keeno u baahan meesha la yiraahdo buriceel iyo balanballe waan ognahay inaysan isu socon in la isu socodsiiyaan raba waxaan rabnaa in dawaysiintaani gaarto ilaa hiiraan midda ka socota dhibaatada ka jirta maaragtay waxba la qarin maayo maanta habareeji iyo cali madaxweyne in la dhex galo oo aan taa u gudubnaa rabnaa dhab u heshiisiinta meeshaan ka furantay maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddaan u istaagnana waa qaban karnaa anigu waxaan joogay shirkii carta shirarka aan hay-aduhu maalgelin wax natiija ka soo baxda hay-adaha waxoodu waa sun shirkii carta anigu waa joogay reer jabuuti waxay yidhaahdeen arigaya iyo geelaya yar baanu qalanaynaa uma baahnin mucaawano shirkii carta ood ogeydeen cid kala qayb gashay dawladda yar ee jabuuti ma jirin dawladda maanta Soomaaliya ku naaloonaysa tii dhashay weey taana waxaa sababay in ay isku kalsooni iyo maaragtay ay naftooda ay aad ciriiri u geliyeen inay shirka hirgeliyaan aan noqono kuwii maanta intii ka soo hartay carta kuwii heshiisii aan noqono Hobyana ha noqoto cartadii labaad anoo si balbalaarinaya dib u heshiisiinta maanta maxaan ku ballanay dib u heshiisiinta halka ka socota inay noqoto cartadii labaad arintaa ku heshiino
inaan arigayga geedayga qalanno kalluunkayga la soo baxno isku biilo oo aanan marna u hanqaltaagin maaragtay NGO iyo shaqadood iyo beel caalam inaynan u hanqaltaagin aan isku dayno wax wanaagsan ayaa soo baxaya wax wanaagsan ayay dhali doonaan insha Allah ta'ala waxaan shirkayga rabaa hadalkayga rabaa inaan ku soo gabagabeeyo galmudug way joogtaa wali ma tagin cid kasta oo hadda ka shaqaynaysana waxaan ka rajaynaynaa oo u soo jeedinaynaa in ay dowrkayaga weyn oo ugu horeeya inaan yeelano ayaanu rabnaa inaan ku soo laabanaan rabnaa saaxada kama annaan bixina waa nool lahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer Hobyo iyo maaragtay ergada iyo madaxda iyo guddiga qabanqaabada iyo salaadiinta iyo jeneraal maanta ninkii noogu daaweynaa jaranka noogu daaweynaa waa fadhiyaa jeneraale noogu soo duceeya maanta inaad dib u heshiisiin samaynaan rabnaa waxaan samaynaynaa dib u heshiisiin maaha waa dhab u heshiisiin waa la bedelay wixii la oran jiray dib u heshiisiin dhab u heshiisiin baan rabnaa maanta aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhowaada waxaan isugu imaanaynaa